Wiil ayaa hooyadii weydiiyey, hooyo maxaad la oydaa? Waxay ugu jawaabtay, waayo hooyo waxaan ahay dumar. Wiilkii wuxuu yidhi, maan fahmin. Hooyadii intay isku duubtay ayay ku tiri, weligaana ma fahmaysid hooyo. Kadib wiilkii aabbihii ayuu weydiiyey sababta ay hooyadii u oydo. Aabbihii ayaa ugu jawaabay, dumarka oo dhammi bilaa sabab ayay la ooyaan. Wiilkii wuu koray oo wuxuu noqday nin, welina ma uusan garan sababta ay dumarku u ooyaan bilaa sabab. Ugu dambeyntii nin xigmad badan ayuu weydiiyey, waa maxay sababta dumarku ugu ooyaan bilaa sabab? Ninkii xigmadda badnaa ayaa ugu jawaabay, markii Ilaahay haweeneyda abuuray, wuxuu siiyey garba aad u xoog badan oo qaadi kara culayska dunida saaran oo dhan. Wuxuu siiyey oo kale gacmo jilicsan oo macaan badan si ay u bixiyaan raxmad. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey xoog gudaha ah oo ay ugu adkaysato dhalmada carruurta iyo inay u adkaysato diidmada kaga imaata ilmaheeda marka ay weynaadaan. Wuxuu siiyey tamar ay ku xamili karto culayska qoyskeeda oo ay ku daryeesho iyada oo u adkaysata duruufaha ugu adag, iyada oo aan cabasho iyo qalbi jab midna muujin. Wuxuu siiyey jacaylka ay u qabto carruurteeda oo ah mid aan isbeddelin, xitaa haddii ay u soo noqdaan iyaga oo sabab u ahaa murugo ay maalin dareentay. Ugu dambeyntii Rabbi wuxuu siiyey ilmada ama oohinta si ay u daadiso markay u baahan tahay. Ilmadu waxay ka dabcisaa mas'uuliyadda weyn ee dusheeda saaran si ay u sii wadato safarkeeda nolosha, waana meesha keliya ee ay u jilcan tahay. Sidaa darteed ixtiraama ilmada dumarka, xitaa haddii ay tahay sabab la'aan. Ninkii xigmadda badnaa oo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi, markii aad u soo baxday dunida, waxaa lagaa jaray xundhurtii, laakiin raadkeedii ayaa kugu sii haray jirkaaga si aad had iyo jeer u xasuusato in ay jirto qof aad u weyn oo kaa quudin jirtay jirkeeda. Allahu Akbar. Hooyo kasta Ilaahay ha xafido, hana barakeeyo adduun iyo aakhiro, abaalkeedana Jannatul Firdaws Allah ka dhigo hooyooyinka Muslimka. Haddaba waxaan qof kasta kula dardaarmayaa in uu hooyo walba ama waalid walba u baari falo, una ixsaan falo. Intay u nool yihiin Allah ha xafido, inta ay ka dhimatayna Allah ha u naxariisto, una duceeya waqti kasta insha Allah. Allahayow kuwa aan dumarka xaqooda fahansaneen xaqooda fahansii. Allahayow xafid oo barakee hooyo kasta.